السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن داوديال Soomaalida meel kasto joogtaan markale walaalka wariye Soomaali Maxamed Baruux Xuseen Xariiq Qaxootiga dhab gobolka Qoy Bari toddobaadkii la soo dhaafay daawadayaal waxay idin soo gudbiyay waraysi kaftan iyo xog ogaalnimo aan la yeeshay ama aan ka waraystay Farxaan Salaad Maxamed oo ah wiilkii bishii 12aad ee sanadkii ku guda jirnay 2019 ee xaaskiisa arrimo masar darteed u basisay ama u gubtay dad badan baa muuqaalkaasi daawaday maanta mar kale waxaan la joognaa gabadhii falkaasi lagu eedeeyay waa gabadha bidixdeeda fadhida Abshiro Rashiid Aadan talow Abshiro ma tahay Abshiro soo dhaw marka hore waan dhawahay walaal waa maasan tahay magacaygu waa Abshiro Rashiid Aadan gabadhii ninkeeda gubtay ma tahay mise ruux kale oo indhasharo soo xiratay talow may anigu waaye Abshiro waan kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaato inaad waraysiga nala yeelato aad waqtiga nasiiso aadna ka jawaabto su'aalahan rabnaan ku weydiino bal sifaan isku waafajina sheekadaadii iyo sheekada Farxaan goormaad isguursateen meeqa carruur isku leedihiin dadka qaar waxa laga yaabaa inay hubsan waayaan inaad kamera soo fariisato Farxaan waxaan isguursanay 2014 bishii 6aad saddex ciyaalna waan u hayaa hadana uur baan u leeyahay alxamdulillah shukr kuma qasaaran guurkiisa ma sha Allah sheekada goorma dhacday waxay dhacday sanadkan bishii 12aad taariikhdu markay ahayd 13 waa maalin khamiis ah sheekada dhacday waa maasantahay mar kale Farxaan wuxuu noo sheegay in habeenkaas shaqo jirtay adiga takhasuskaadu muxuu yahay aniga foon soo bogay shaqadeeda haye marka shaqo MSF hay'adda la dhaho istaalkan meel caafimaad ka helay auxiliary nurse ah marka istaalkan ka shaqeynay marna habeenan galay marna maalin galay kalkaali caafimaad baad waan gartay marka bal sidee wax u dhacay noo sheeg maxaa kugu dhaliyay inaad saygaada gubto waxa ay ku dhaliyay dhibaatooyin badan oo soo jireen 5 sano Farxaan aan wada joogay dhibaatooyin badan ay soo mareen marka waa iska dul qaadanay laakiin hadda inaan falkaas sameeyo ma ahayn marka arin si xun u dhacday noqotay shaydaan uu ka qalib noqday bilo aadan warxumada shil oo dhaxdeena ku jiray dad eelkiisa ay kamid yihiin marka hadana alxamdulillah shukru waa ilaahay Farxaan uu soo badbaadiyay alxamdulillah ma iskale habeenkii shaqada aaday oo ku maqnay sida Farxaan noo sheegay inaad qirayso subaxdii baad cid imaatay qoonsimaad iyo waxa ku sii jiray masayr marka hore mise intaad maqnayd bay arrimo kugu dhasheen oo sidaas baad falka u sameysay maya wax maalintaas ayadii arintii ugu bilaabatay ma ahayn arinta maalmay soo socotay ilaa iyo muddo 7 bari camal ay soo socotay warxumada shil baa dhaxdeena ku jiray waxaan soo maqlay Farxaan in laba gabdhood isaga awgeysay isku dagaaleen meesha oo raashinka lagu qaato keer hada dhigaxayna waa aragtay meesha keer raashinka lagu qaadanay iyo suuqa waa isku meel marka Farxaan laba gabdhood isaga awgeey isku dagaashay sida la ii sheegay warkii bakaan soo maqlay oo soo ogaaday Farxaan waa uu maad waxaan walaalow si wax u jira arintaas dhacday marka sababta isku daalaan maxay ahayd waxa la dhahay labada gabdhood xiriir baa ka dhaxeeyay asaga isku wada labadaba marka meeshay ku kulmeen hada waxay isweydiin leeyma sheegin labadii Farxaan awgeys isku dagaaleen baa leedahay asagana dagaalku ma jirin laakiin wuu taagnaa marka warka yaa ii xaqiijin kara yaa maxaa dhigi jiray xaqiijin isiin kara asaga Soomaha asaga aan u imaaday Farxaan oo dhibkaas aad igu sameysay kalsooni dara igu beeraysa arintaas dhacday waana iga qarisay si wax u jira Farxaan saad wuxuu ku dhahay gabdhaha waan is dagaalna waa run laakiin relationship nagama dhixin xiriir lagama dhixin aniga gabdhaha haye maxaa idinka dhaxay maxaa isku dagaasheen mushmaca keer dhaxdiisa maxaa isku dagaasheen haye Farxaan wuxuu dhahay anoo keer shaalka iradiisa iska fadhiyo oo wiilka kaarka saxay meesha ku sugay gabar meesha taagneed caag igu dhafatay caaga markay igu dhafatay maxaa caag igu dhafanayaan dhahay gabadhi waan muranay tu kale to qaraabo aan hay ay soo booday oo aan ii hiilinaysay tii waxay dhahdeen maxaa wiilka caag ugu dhafan laba gabdhood meesha isku dagaaleen gabarna dhaga ka dhuntay gabarna mobile dahab gabarna mobile ka dhumay sida maqlay tan mobile ka dhumay ay Farxaan isku ciidiin cawlahan waa lagu dhahay tii mobile ka dhumay waxaan maqlay in mobile loo gadaayo oo loo iibinayo markaan warkii waan soo ogaaday asagii waan weydiiyay wuxuu dhahay waxa isma jiraan mobile lama dhumin aniga gabarna isma dagaarin laakiin dagaalka wuu jira labada gabdhood ayaga is dagaaleen waxayna isku ani awgeyn way isku dagaaleenoo
caagaasay igu dhufatay mid qaraabanimo ay u heelinaysa tan qaraabanimo ay u heelinaysa tuna waxa igu dhufatay adag marka ma aamin warkaas ma aamini waxaan ku dhahay tan caagamkay kugu dhufane maxaa ka horeeyay tan ku heeline maxaa idin dhixiyay farxaan warkii si fiican ugu muuqayxin kuma qancin soo igu qaaxay naan waxaan dhahay muddo 3 bari aan ku siinaa 3 bari aan ku siinay arinta ka soo fikir war sax ay keen anna magaaladan galo warkii waan soo dhuuxanayaa akhbaar baad raadis haye maalmaha kamid subaxa asaga wax aan gubi doono farxaan eedadiis aabihi la dhalatay ayaa igu tir eeday arintan way dhacday ana wax raadis farxaan iyo gabar ay isdagaaleen ay dhacday laba gabdhood meedinay farxaan laba gabdhood isdagaaleen farxaan meeshuu taagnaa gabar cideena mobile ka dhume mobilka ana loo haystaa arinta ila stationkay gaartay eedoy ninkaada waani oo la hadal maxaa yeelay fudaadkaas kuma ogeyn farxaan tuugna kuma ogeyn farxaan wali wuxuu hadalay ma dhihin arinkaas dhacday mobilkina waan gadaynaa farxaan adeerkiis iyo ayada inay aruurna marka aanay waagaaba igu bariyay arintii way ii cadaatay maadaama eedadiis arinta ii qaxday waab ii cadaatay dhab bay noqotay waan gartay marka waxaan sameeyay ma garanay indhaha ay madoowaadeen cidiba daqiiqadan ku tagay aadiyad habeenka shaqaad ku jirtay habeenka shaqaan ku jiray maalinkii maamada suuq isku aragnay way ii sheegtay suuqii kan shaqada ka soo baxay aan magaalada isku aragnay way ii sheegtay arinkii aniga warwar baa ma karo raadinaysama waa ii bilaabay xog fiican aad heshay wax fiican soo farxaan waani ali dhahay kuwaadkaas kuma ogeyn tuugnimo kuma ogeyn gabdhahaas la dagaal mobile u dhimiyo mobilka waan loo haystaa annagaan hadda gadayna waan gartay aan ka dhaxgalo abshiro marka halka joogto inta xaafadda soo gaarin ma go'aanka waxaad gaartay inta xaafadda soo socotay ma marka xaafadda imaataad gaartay meeqa go'aan baas kugu soo dhacay meeqa ficil baa kugu soo dhacay inaad qaado oo tirisaad sameeyay go'aamo badan ay u soo dhaceen maxaa kamid ah waxaan asagoo jiifaan u imaaday maxaa dhigi mana uu hurdayn uu soo jeeday ilmihiisu la joogay inta guruun qaata farxaan madaxa ma jibisaa way qabatay waxaan dhahay farxaan ta guruun ku dhufato haddana qof xanuunsan baatay kugu soo boodiya ka celin uu ku dili nafteeda u baqay waa qodob waxaas la farxaan asagoo jiifo go'a sirrta inta ku soo laba dhinac soo gadiso ma ku tashaa go'a dham ku tashaa oo guruun inta qaat irbad raadle inta qaat ku tashaa haddaan ruuxan si fiican uma hurdihayeen hadduu kugu soo danaya ka celin macnaha bal meesha ku ceel waxa tiri go'a uu ku jiifo intaan labada dhinac uga soo gadiyo inta cirbad qaata ma ku tashaa haye ilaa haddana waxaan ninka si fiican uma hurdihayeen uu kugu soo toos marka go'a ku tali soo kuma diray oo kuma soo boodaya ka celin nafteeda u baqada maana ismaad weydiinin qof nool oo soo qof nool seemara lagu tuli isma dheen waxaas laakiin waad awoodi kartaa istiri awoodi karaa waa istiri haddana waxaan u baqay nafteeda waxaan dhahay farxaan wuu ku diri haddaad go'aan ku tashay inta ku taadi ku reebi ninka si fiican uma hurdahay uu ku diri waa laba qodob marka dambana biyahana ay soo baxeen haye ilmahan dabaan shitay ilmahan quraacdo biyaan dabka saar waxaan uu baxay biyo soo dhaamiyay uu imaadan dib uu iska seexday haye waan u dhaartay markuu seexanay maxaa ku dhahay cad baa lagu jari waxaan dhahay maanta ha seexanin haye ay seexanin farxaano waad u digtay haye marka asaga uu iska kay aaminay uu iska seexday marka ay biyo ma dabka saareen waan ku shoo biyaha maxaa ku dartay biyaha waxaan ku daray basbaas iyo بس أنا كداري هي لين ولا شيء ما لينكم مداري تطور رحمة الشيرة إسكيجي هذه أول ما ندون رحمة الشيرة كدتك بس بيها اللين كليه كدرت لين ما هو درت لينكم مداري بس أنا بس ما هو درت وأنا سقدر بس كأذيك ماشي ويا قال دمشق مرقة كرسة وأنا سقدر أمر الله وحتى كل الكسيب كركاسيك باكرتي ما كان لي وقت أنا مدة رئيس سعودي هي فرحان 5 سنة وذا جوجن 5 سنة عدودي وما فرح سنين waxaa ka mid ah hooyada asaga dhashay farxaan iguma ay faraxsaneen ilmaan u dhalay 3 ciyaal aan u dhalay wiilka labaad markaan uur ahay oo wiilna aan dhalay ay maamadii maxaa dhigi jiray guriga iga kireysatay maamada 7 gabdhood ay dhashay 7 gabdhood iyo maamadii ayaaba gooni iigu heshiiyeen marka gabdhii way soo weerareen maamadii waa diyaar markaan la hadlo gabdheeda jacayga madhaysaayda igu soo boodi farxaan way soo waday madhawaa qof xaamila tahay in lagu dala arka ciidina ku geeyni ciidana uu keenay farxaan maxaa ciidana ku keenay meeshan ku dhalay wiil kaleetaan dhalay wiil waan watayah wiil kaleetaan dhalay farxaan hooyadii waxay sameysay alaabta guriga way iga soo dariisay guriga way iga kireysatay fadhiga way iga gadatay 3 bari kadib ayaa waxaan maqlay alaabtaada banaanka taalaa guriga waa la kireystay waanteeda lahaw
marka farxaan iyo waan u sheegay eedadiisa maxaa dhigay san uu la hadlo u sheegay eedadii baa alaabta noo qaaday fadhigana gabar dariskayga isku xaafadana laga gatay marka horta dhibka dhan meeshuu ka bilowday waa hooyadiis farxaan ana dhib hore qabtay ciil hore taan qabi ciil igu soo gargaaraan qabi marka guriga waa laga kireystay hadda darad bish markay ahayd taariikh 13 bisha 12 guriga aan ka soo baxay farxaan hooyadii way kireysatay guriga hadda intuu ku dhacay ka soo baxay bisha way kireysatay bisha 12 guriga kira loogu jiray alaabtana meel ay geysay ma sheegi kari waxay tagtay UNHCR waxay dhaday gabadhii wiilkay gubtay ma joogto Soomaaliya ku maqan tahay meel ay lama garna ilmihii baa gacanta igu jiraan wiilkii wuu maqan yahay isbitaal buu ku jiraa waxa u baahanahay in kaarki lambarkiisa la isiyo maamadu waxay imaatay meesha raashinka lagu qaato kaarka way calaamadeysatay taas ha hilmaamin dhibaatada adiga laftaada waxyaabihii ku soo gaaray baan gadaal uga darayna sheegi doonaa maalinkii farxaan marka biyo wad karkarisay kadib maxaa dhacay farxaan biyaha waan ku shubay ma ibriqad ku karkarisay ma digsi ku karkarisay biyo badan bay ahayn bal noocay ahayn biyaha digsiyan ku kariyay haye digsi weyn haye digsi caadi cunto sakarsan aan ku karkariyay aan ku gadiyay baaldi haye baaldiga san ku sheegay farxaan marka inta aad ficilka sameynayso haddaad gadaal u xusuusato maxaad dareemaysay ma isla qumanayd ma sidee ahayd markaas arinteeda markaa 50-50 aad ma ku shubtaa ma iska dhaaftaa ay ugu jirtay biyaha markaan gadiyay baaldi aan ku gadiyay gacantaan gadiyay biyaha walkoodan fiiri waxaan ku dhahdana biyahan iska dhaaftaa ma ninka saan ku galay sababta u deeyni maxay tahay marka amar ilaahay ku dhacday arin aan ka xumaaday noqotay waxay Soomaali ku maahday kugu dhacday ka dhacday aad marka ani waxay ugu noqotay arin ani aan sameeyay anna igu dhacday sax marka ma jacayl baad u gubtay mise nacayb ma farxaan jacayl aan gubay dadka Soomaaliya way iska warbadihiin farxaan waxa la dhahay canjeero duwaye farxaan ilmaha habeenkii mariyaha u dhaqaa ay dhaheen farxaan naagta gacanta ugu jiray way ka adka gacanta ugu jiray dhahayaan ninkan ragga asaga cid mas'uulka asaga ani xaqayga qaaday si aan uga adkaan horta wax ka jira ma laha ka jira ma laha asaga marka ani meel aan aaday haduu maqan xitaa waa inaan waco farxaan oo meeshana aaday way ka baran inaan dhaho waay qofka asaga si ani aan uga adkaan horta waa gartay warxmad shiilka ka mid tahay leedahay waxna kama jiro falk markaad sameysay farxaan muxuu sameeyay aniga markaan biyaha ku sheegay farxaan wuu soo bodanaa maxaa biyaha igu sheegay ku yidhi mar labaad haddana ku celiyay waan carray guriga soo xiray farxaan wuu baxay iridu ka baxay kadib maxaa xigay ma igu soo laabanay ma farxaan maxaad maqashay adiga marka xaaladdu sidee ahayd adiga maxaad dareed markaas marka biyaha ku sheegay markaan biyaha ku sheegay guriga ka soo baxay farxaan irida markuu igu dambeysay irida ka sii baxayay meelahan garabka way ka maroobeen biyaha ka maroobeen marka waan ka naxay isla markiiba ma ka daba gashay ma raacdaaba ay qabatay haddana waxaan dhahay marka ka daba gashay dadka soo kuma diraayo marka ma aadeen laakiin arinteeda marka la dhahay waa la qaadaya farxaan uu ka daray referral waa la qaaday waan go'aansan inaan baxo oo gaaris loo qaaday marka arinta way cusub saamo marka way ila xumaatay inaan ka daba galaan damcay laakiin dad aan qaraabana i reebay laakiin go'aan ani aan leeyahay kuma joogin waxaana maqlay farxaan walaalkiis inuu toori la wareegayo wiilkii toori la wareegaya istaalka irdiisa hadda lagu reebay maxaa soo doon intee mari marka ani inaan iska baxo waan jecel laakiin tolkii way reebay waa absatay waa iska absaday waan gartay wax lagu gaarsiin jira adiga marka laga tago dhag hadalka iyo canaanta iyo waa la yiridaas wax af iyo adno soo toos ku gaaray adiga abshira ah ka soo gaaray farxaan iyo ehelkiisa ma jira oo fal celin oo la kulanta wax aan hadda oo la igu dhuftay aan ku dhigi karo qofkaas ay gacan qaaday ma jiro afxumo oo dad dhalinyaro iska afxumad way jiraan aabihii asaga dhale uu soo dacweeyay station ku taa laakiin waxa lagu xiray aan ku baxsaday farxaan warqadaha soo saxiixo qoftan soo in la xiray marbtiha asaga soo saxiixo warqada inta laga qaaday gaarisa la geeyay farxaan loo geeyay farxaan warqad inuu soo saxiixo wuu diiday in lagu xiray inuu saxiixo wuu diiday marka farxaan haduu diiday ani aabihii ma soo gaarin laakiin aabaha inuu dhaaranayo oo ilaa hadda stationka uu tagayo aniga horta 3 ruux baa badbaadisay 4 ruux ilaahay ka soko 4 ruux baa badbaadisay waa awowga farxaan awowgiis waa farxaan asaga naftirkiisa eedadii farxaan qaaday oo la socotay wiil adeerkiisu Cabdixakiin la dhaho 4 ruux baa mahad u celiyay ma sha Allah ilaahay ka soko ku difaacday waan gartay farxaan in uu diiday in lagu xiro iyo ehelkiisaba ma isleedahay ka fiicnaadeen way ka fiicnaadeen ma sha Allah aad bay iga fiicnaa weyna ma haysiin walaalkeena way cafiyay aniga hal ruux baan qalad ka galay
ninkayga un baan dembi ka galay laakiin Soomaali maxamadan waa dad ay habaarayay dad ay duceynayay dad maxaa dhigi jiray aflagaadeynayay dad ay soo caynayay marka inta dhan hadda waxaan wax aqoon laha waan cafiyay aniga xitaa waad ila kaftantay waxa tiri fartaad igu godayo dumar badan baa wax gubi jiray maxaa aan tayada u buunbuunso saxaafada bal aniga laftay igu rid waa runtii maxaa yeelay adduunyada ani hortay waxaan way soo dhici jireen naagtiisa gubta hadda ugu horeyso laakiin idinka cowlahan ahaan marka idin dhaho aniga qorsheeya iga dhigteen waana ay buunbuunaysan arintii waxay dhahdeen gabadha xaaskiisa gubtay adiga hataa waxa dhahday warka marka tabinayso inaa hubsato aad u fiican waxaa tiri xaaskiisa gubtay 6 saac habeenimo sariir lagu shubay هذا مالك آذان كاغا حماده واحنا آذان كاغا حماده ما استراسي لفتي inaad biyo ku shubta ficneen taada kale waxa ku dartay Kenya wax waa looga qaban waayay dalka dibadiisa in loo qaadal rabaa maxaa dhibka kugu xaqsaday arinta marka hore ma hubsatid maxaa saa u dhihi ilaa qofka yoonay siyaara qaaday wixiis waa la beegareynaa kalkaali caafimaad u haysta adna haddaad isii bubuunaysaa dhahda wiilkii waa tabcaan meesha wax waa looga qaban waayay wadamo kale wax loo qaadi raba aniga hadda waxaan isleeyahay farxaan aabihiis oo kugu dhaaranayo maxaa daaruuda kugu diray macnaha inaan dhibka ka qayb qaato oo aragtaa aad la warkii soo tabisay oo duqi warkii uu fiirso oo hooyadii warkii ay fiirsato waa waalid wax dhalay ka naxay marka waxaan aaminsanahay in aad igu dirtay oo dhibka ba qayb ka sameeyay waad aragtaan ani laftay way haysataa laakiin aniga gurmad halkan aan ka tagay gurmad baa u sameeyay markaan dhahaynay xilligaana waa noo sheegay ehelka noo sheegay xilli ehelka noo sheegay bahayd marka waxaan firay geel dida waxa laga dhax qabtay ahayd waqti la ii sheegay waxa kale oo la ii sheegay oo markii dhaqaatiirta xaqiijin horta dibadda maana dhigin laakiin magaalada Gaaris waxa lagu ma qaban karaa qorshuhu ku jira laakiin kadib baan dhaqaatiirta ogaanay wax laga qaban karo waana qaadanayaan lafteeda qaladkayga ummadda kale Soomaaliyeed waxyaabay ku soo gaareen maxaa kamid ah waxyaabay soo gaar aflagaada kamid waxa dal igu dhufta ma laha laakiin wiil asaga walaalkiisa 20 jir ah maalin kasta ma soo diri jiray inaan noolaato maxamed maxamed kugu talagalay hooyadii to inaa hadda noolaato aad si hadasho Dr. Maxamed kugu talagalay laakiin anaga qorshaheena ma aha oo dhahay waa gartay sida ay sheegtay abshir qof wax bartay baa tahay iskuulka sare bogoy tababar badan ka qayb galay xirfadda caafimaadka qaybta waliba kalkaaliye caafimaad baad baratay adigoo aqoontaas leh oo qofkii lagu dayan lahaa ah in waxyaabo dadka qaar ay ka xishoodaan ka gooyadaan aad samaysto maxay tahay kulata xumaata badan oo aan u dul qaadanay ayaa igu sameysay qofkii aan u samray aan u dul qaadanay asagana uu ii garan waayay farxaan kala gaceel aan u qabo aan 75 kun meel cadoy gacanteeda uga tiri oo aan shaqeey maxaa u sameynaa kala gaceel aan shaqo abuur aan u sameey dukaan aan u dhisay maxaa dhigi 75 kun iga gashay walaalo shaqeyso reerkaada meel iska soo bixi hooyadiisa xuna u dul qaadanay walaalihiisa aan ximinay baa u dul qaadanay asaga aan aamin oo qarashkayga farta aan ka saarana maxaa dhigi jiray ii garan waayo dumar kale inuu igu wado iyo naawo shaqaansanaya iyo gabdhaha isku dagaal hadii la dhaho aniga aad baan uga xumaaday isku darayaasha kale dalayaasha war xumatay sheelayaasha adiga oo ku sheekay iyo kuwa kale u sheekay warkooda hadda maxaad ka aaminsantahay dadkaas warkooda ma ku faa'iido warka ku sheegeen gabdhihii iyo dumarka ku sheekay warkooda ma ka faa'iiday mise ku qasaartay ma kuma faa'iido ku qasaaray aan ku qasaaray inay waxaas ii soo sheegaan ma ahayn kuwa badan waxay dhahaan farxaan canjaaru duwaayay ilmuhu dhar u dhaqay waxaan ka wadaa kuwii ku dhahay islaanka uu jecel yahay tukal uu la socdaa naaga isku dagaalay kuwaasan ka wadaa warkooda hadda ma kula saxan yahay markuu kula saxsanaayo ficilka ku sameysay hadda sidee kulay warkooda uu qaldan yahay warkooda inuu qaldan yahay ay ila tahay laakiin ruuxi iga saari lahaa asfarxaan aan iyada saaraya muddo 3 bari aan u sheegay 3 bari aan u qabtay 3 bari gudahooda war saxan ka raba maxaa ka yeelay iska dhigay muxuu maxaa dhigi jiray oo shub iga yahay ma warka asaga inuu cadeeyo lama rabo inuu asaga waxay fahantiisa dadku qaar waxay isweydiinayaan abshiro intaad gubi lahayd inaad isaga tagto inaad ficil kala samayso qaab kala jiri lahayd hal kale ma jirin waa runta way jiri lahayd mar baan ku aansay farxaan inaan kala tagno laakiin calafka ayaa meesha ku jira dhibaatooyin badan oo igu hay hadda ka horeeto oo inaan ka tago aan damcay hadda calaf meesha iska jira sababtoo farxaan inuu ifuro miswarqadeeda isii weydiiday hooyadiisa xun iyo asaga dabeecadiisa baan waxay ku yareeshin wayna
wuxuuna idhaa walaahi hooyaday way xun tahay haddii adi hooyada xun tahay waan kugu dul qaadan lahaa ii dul qaado weligaa dhihi jiray haddana qofkii inuu khiyaano in la isku diga waa sharaf darro nin reer leh oo ilmo loo hayo oo maxaa dhihi jiray aan shaqaysanaynin oo ilmihii loo soo shaqaynayo in haddaan la dhaho dumar waday maxaa dhihi meeshii qof la taagna waa ceeb waa arrin laga maxaa dhihi laga fiirsado in lagu diro khalad bayd baad leedahay aad lafta inaad aaminto khalad bayd soo anigu ina aamin qalad ay taa laakiin waxinaaq iyo masiir awgees tada kale qofka dadka warka ii sheegay waxaan si fiican ugu aamin farxaan ehelkiisa waay ehelkiisa aad iyo marka waxa leeyahay xasadku ehel uu noqon karaa asxaab kale way noqon kartaa waan gartay wada meel way noqon kartaa ma ka qoomaysay ma ka shalayday ficilka aad samaysay hadda maxaad dareemaysaa waan ka qoomamay arinta kugu dhacday ka dhacday bay igu noqotay adduunyada waxa igu murug badnay farxaan habeenkii la sii waday oo rifaarka loo qaaday habeenka indha isku ma qabanin taada kale to waa la sii waday farxaan dhaxda biyay ahayd eedadiisa khayr la siiyo waa markaan waco telefoonku iga qabanaysa ayada wiilka xanuunsan wado telefoonku iga qabanaysa xaaladiisu waan dhahay ambalaasiya iska taagan biyo meel aan marnaan laanahay laqti lagol dhahay biyo wada amka ay dhahday adduunyada taas ay igu naxdin badan aad leed armo gargaar laan labaadna waxay ahayd markii farxaan isbitaalka la dhigay ma tagteen manna waa tagteen kastoo neefta iga soo booday farxadeeda labaad waxay ahayd oo neefta iga soo booday markaan farxaan 20 bari kadib aan la hadlay asaga laftiisa telefoonka eediisa igu dhiibsan un bari eed macaan telefoonka igu dhiib hal mar aan la hadlay saan walaha ma hadli karo sayidaysa marka dambe khayr la telefoonka igu dhiibtay farxaan waan la hadlay walaalkay uu mahaysan yahay uu yaafay asagana cafiskaas sidaad u aragtaa maxaa dareenta markuu farxaan kuu sheegay inuu ku cafiyay cafis aad tahay cid saxar dushaada saaran qaadi kartana aysan jirin isaga waxay dhaxmar isagana uu ku cafiyay maxaa dareenta farxad weyn aan dareemo kaliya cafiyay maxaa yeelay horaan waxaan ka fikiray farxaan adoo arkin abshiray ama uu ku cafin hadduu dhinto haddii aqra maxaa kaaga horeeya haddoo ilaahay abuurtaa tahay adduunyada waxaa lagu kala inay ilaahay caabudo dhibkana samaysay farxaan ku cafin hadduu dhinto haddii adduun waa aqra waa ilmihi kuuga agoontoobaayin oo maxaa dhihi jiray wax sabota ka heli ay jirin cidii oo qodad gari dhici karto ilmihiiba laga qaato dhici karto adduunku waa laga bixibo laakiin tii aqra hadan u fikiray maamada hooyaday khayr Allah siidan waxay igu dhiirigelisay abshiray dhibkan Soomaan sameeynaha jiif wax la dhaho oo ku yaalo ma jirto adeeg jiif is iloow tusbax ay soo gad oo 100 xabe waxay dhahay yaa Allah oo 100 jeer dheh subhanallah oo 100 jeer dheh caawa dhan tuko salaatu leyl asmale habeenki karso habeenki haba seexaninbo salaatu leyl tuko marka ma duceysanaysa mise asaa u duceynaysa maya asaa u duceeyay ilaahay caafiyo in ilaahay cagaal ku saaro inuu gacantayda ilaahay ku sababin adduun waa aakhira waa in aan igu dhicin aan ka fikiray marka walaalkay muxuu yaafay farxad weyn aan dareemay alxamdulillah shukr ilaa hada oo duceeyay ilaahay cagaal ku saaro ma sha Allah farxan wuxuu sheegay inuu ku cafiyay in maaragtay waxba uusan ku haysanin ana laftana farxad bay noqotay in la is cafiyo hadda xaalad waa sida farxan waa la soo celiyay ma booqan rabtaa xaalad waa sida wali ma booqan farxan waxaan u booqan waay ehelkiisan ka cabsaday ani xumaan igu jirto ama farxan cabsi ka qabo maxaa dhigi uma tagi weyn laakiin aabihiis iyo hooyada dhashan ka cabsaday iyo walaaladiis oo leedahay way ku dhaaranayaan la meeshii wali dhaawici baa jiray dhaawici jira way ka taagan yihiin marka waxaan dhahay dhib weyn inay ka sii dhacaal arkaas aan uga joogay waraysiga ma la weyto su'aalaad qoonsataa jiray sida ay sheegtay maxaa kamid ah su'aalaad qoonsatay farxaan aan la yeelinay waxaa kamid ah waxaa dhahay farxaano gabadhi sidan ku yeeshay wada cafi Soomaha maxaa rajo oo ka sii qabtaan dhahday marka arintaas aadan u dhibsado inaad adi maxaa rajo qabtaa adi aan ku haddaan ku weydiis la su'aashaas reerka sida jeceshaad reerka inuu ahaado reerka soo ilaahay ka dhigay noqon aadiyad soo ilaahay ka dhigo bay noqon reerka farxaan wuxuu sheegtay inuu cabsi qabo aadiyad cabsidana tal uu ka cabsiyo ani oo iga cabsanahay aadiyad wama maahay wuxuu dhahay libaax wuxuu dhahay bari ka goostay oo meesha ku sii jira gal hadii lagu dhaho oo macnaheedu tahay adigu gubto baa meesha joogto sidee lagu aamino aniga asaga aniga bay ka cabsanahay saas buu dhahaa anigana laba ruux aan ka cabsanahay ani asaga oo yaafiyana waan ka cabsanahay abshiray cafiskan lagu cafiyay ama been tahay oo shirqool ay tahay asaga gacantiisa uu raba inuu kaaga arsado waa koow waa mid waan ka cabsanahay
farxaan eheladiisa iyo hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii asaga la dhasheen farxaan hadduu ku cafiyo oo maxaa dhihi reerka uu sidiisa ahaado xitaa kuwaas unbaa kaa aarsanaya adduunka waan ka fikiraya ani labadaasaan ka cabsanaya farxaan dad tolkiisa baan ka cabsanaya asagana cabsiyaan ka cabsidaada xagga u dhig adiga maxaa ballanqaad oo haysaa hawshaas in waxba kaa imaanayna hadduu reerka dhisnaan hayo oo reerka sidee ilaan hadda weli waa isqabtaa inay soo farxaan sheegay cabsidaa maxaad ku bixin kartaa oo maxaad damaanad qaad oo ballanqaad oo samaynaysa adiga aniga mi ani fal xun baan sameeyey haddana maxaa dhihi jiray inaan mar dambe sameynay ma maleynay ana iyo marona aakhirada adduun uma roona aakhirna uma roona wallahi billahi taala mar dambe sameynay ma dhaad ku dhaaratid aan marxaati ka hana anagana ma wallahi ma sameynay shalay soo intay gabdha adiga kule ku sheekeen ma sameeyeen armaadana bari shalay biye ee dadka qaar xisleen bari ama toori gelisaa maya arin xuma arintaas ana iyo marona adduun uma roona aakhirna uma roona marka anaa hadda ku faraxsaneen baa ka qoomameynaya wixii aad sameysay waan gartay inaan mar labaad ku sii laabto ma rajeenayo ilaahayna igu ma celiyo waan gartay su'aal kala dibsato ahayd aan weydiiyay farxaan oo ahayd arooskaada arooskaada ay qarin ma ku dhax qarna warunta arooska farxaan haddaan kala tagno alxamdulillah shukr u wada soo dhaw dad saas u kala go'aymanay laakiin adiga kasta waxaan ku dareemay in arintan buubuunayso aad leedahay farxaan oo qof kale iska guurso oo gabadha warqadeeda si oo arooska dambana hadii waxa isku ogeeyay laakiin ma dhihin soo waxaan dhahay arooskada laakiin ani waxay ila noqotay adiga saas u qaad weli ma isdii kara masirka kugu jira maadaama aniga lafteedu su'aalaha ka masirta abshiray weli waa masirki waa calaamadii ka muuqdo ma dhihi karaa ما يلا ما ديكرا هي هذا قفك إن هذا محل يجي صدقن ولا هذا الشو برجينا مو شيء إن مش مع الحديد هذا فرحانه حاسك محار رجاك قبطه إن هذا استوى غير نفسه حد ضد بدن Soomaaliyeed baa wareysiga farxaan iyo cafis kadib waxay leeyihiin baaruuda waxa ka qayb qaata sidoo reerka cagiisa uu istaagi lahaa reerka ku sii dhisnaan lahaa adii maxaa ku talin lahayd فايكو في عنا شو أنت ما هذه السؤال هذا وضع جوجنا هذا كويديو ما هذا قانك أسرع إسكال مكت قانك أسرع إسكال الدور الكيس ودس لكن واحد طلع ديو ملعدي أنا قاعد في إسكال صيب ضمبانية لها هلا عفية ما انكرتي سيدا شيكتي من كان حقوق مسير سوساس ما مسير أنجو بينك وحمان أم قبل جعل عن جعلها أنجو مسير محوي ترى موالبة مجعلبة مفيوبة محيت والله ما عندي كرا هذا واحد ما كان ديبك كل عضو وما بواو كوبري مركا واسكا والله ما عندي كرا أنا هذا كور فعل نوع عسكر ما كون فكرت أنت تذكر ما هي ولي ما فكرن ولي ما فكرن أرين كاس ما كان حتى سوس عندك ما فكر واسكا حناقي وأصلها اللي كري لكن ما كان عندي ما هذا بأردس أنقو أنصد تذكر حس ودين هين أفر برا قالوا بني كل جاب قبي فرحان سو الشيء حتى تبرو إسلام كلا كوجر سلمون قبين nin wax kale meel ku haysta ma ahayn nin adigu kula daala dhacay aruurta isla kursanayeen buu ahaa maxad isaga u aamin weysay oo dadkan kale hadaladooda u aamin talo waxaan u aamin waayay asaga aan raaw inuu warka iga xaqiijiyo warka iga ma xaqiijin kuma qancin maalinka aan weydiiyay wada waxa dagaalkan uu jira kisto fiir waxna uu ii sheegay waxna uu iga qarin bas dhigi kara dhag war cunta war labaad cuntada ahayd oo war hore ku sii horeeyay ما يلا ما ديكرو محيل أسجع محل يجي أنت إنه صفي عيقان هي وحجر هذو يدور حتى ولا الله ويجرته وانسميه قال ذي كود عده مرضى بنا ما دعيس واسكع عملها يعني لكن أسجع محل يجي صفي عنه موسم موجين رنتيس ما علين كان وجودن بس كذب يلا مو هذا صدق البرية وقفتنا وين أفتي ما شاء الله بلان وقفت صدق البرية وقفت صدق البرية وقفت دمر كلا جيابو إن فلك النوع عنه كلا إن كوفي كرايا أما مسيرسن أما وحيابها النوع عنه maadaama adiga aad 10 hadda qaadatay maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa marka la masir in masirka laga fiirsado inuu talab badan la qaato ma kula talin lahaa oo qaladka durba lagu dhadhicin loo fududaan ma sha Allah wasdi kala adaaba show fiicnaan lahayd inaad dadka la taliso hadda ka bacda hooyadii masirka aad noqoto waan la talin karaa wallahi waan la talin karaa wixii weeyna waan siin karaa because ana igu dhacday waqti waxa la soo arkay aadiyad dibidef waxay leedahay ana soo arkay waan la talin karaa ma sha Allah markii kugu darneed goorma ahayd intii arintan dhacday xilli kugu darneed kugu bahar badneed markii laga soo tago marka kale kugu baharka barda xilliga ahayd
waxa iigu walbahaar badnaa farxaan marka la dhahay referral loo qaadaya farxaan waa sakaraad wuu darsaday istaalka MSF lama seexin rabo referral loo qaaday ada xal leed hayra kulaado istaalka baa la seexin daawon baa la siinay waad u tagayaan laha galabta baa u tagtay islaha inta waarka la geeyo صح marka arinta saan ku dashanay may noqonay inkastoo aad sheegatay oo tiri la ima turin haddana cidda ama kuwa ku cafiyaha ama kuwa kale ay laftooda ku soo hadlaha ahaadaan oo geedta fooda ku haya maadaama dadkii la xakameeyo ma kasti la xakameeyay ma sidii kara reer goob reerku waa reer goob ma sha Allah laakiin hal barura qormisa wala ma qashay dad malaa'ig la moodo baan kartay laakiin dadka way badan yihiin aadiyad inta fiican ayaa aan ku afar ruux bis aan ku dhahay ma sha Allah afar ruux bis waan maxay cidda saytiga wanaajisay asxaan ii fashay laakiin hooyadii aabihii dhaleen ana asxaan ii may farin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa daawadayaal mar kale waxaan idin leeyahay idinkan aad ku mahadsantihiin daawashadeena barnaamijkan oo ay marti noogu ahayd nala joogtay nala falanqeynaysay waqtigeeda naga ogolaatay abshiro rashiid aadan oo ah gabadhii haddii saygeeda gubsadan ku dhaaxinaaqin gabadhii u soo xaydatay u soo guguntatay xinaaq isxajin weydee markii dambe intay maseyrta loo soo sheekeeyey wadaadkeeda biyaha kulul baaldi biya laba jeer ku shubtay baaldi biya ku shubtay waxa xusid mudan in abshira ay ka qoomameynayso ka shalaytoonayso aysan sida sheegto ku faraxsanayn wixiina uu ahaa wax ficil iyo masayr iyo la yiri iyo sheeko qaaday sidoo kale waxay qirtay in ay ninkeeda u gubtay ama falka u dhacay sidoo farxaan ba sheegay oo ah war dad yiri iyo shaki balse wax kastaba qadarta Allah ay ku dhacday isla markaana aad ugu xun tahay ilaa haddana ay ka warqabto cafiska walaalkeedna aad iyo aad u soo dhaweynayso iyadana ay cafisay dad badan oo aniga laftaan ku jira Soomaa أنا تبي عفيس. أنا كو عفيس حقه مثلا. هذه الدور ما سنتهين ورحمة الشيل بدنا أسكندر أنا قلت مركز ساكن حافظ السوق قالها وعبسن هي حالة مركز لسه هلا لو هلا وعبسن أبشر وأنا عبسن أكون شيء اسمه. ها إيش أكتور أنت. قولي هذا السوق قالين مركز سوق قالين وسوق اللي بناك دعينا فريستو نينا صاحب من هو ساكن إريني وشيء كان سو سمين ربا أرنتاسن حالكاسن كشغيرة وحدانيو حال سمين ماشي تيه داتك تنقولي هجيل. marka maaragtay shaki yaqiin looga bax ana abshir wax iimayl yeerin waa gabar taas wanaagsan ee Soomaaliyeed qof kastana qalad waa ka dhaca kuwa dad dilay kuwa dad dhaca kuwa gabdho kufsada kuwa dawladda dhisan soo dumiya waliba maaragtay abshir waxaan aad uga mahadcelinaa inay qaladkeeda qiratay ka qoobameynayso cafisna ay dalbatay la cafiyeen aad ugu faraxsantahay sidoo kale de Soomaali badan baa soo wacdo dhahay reerkan waxaan rabnaa inuu sii dhisnaado reerkan uu dhisnaadana waan rajaynaynaa waxaan rajaynayaa waliba arooskan sheegayna aad noqoto mar kale ya inshallah soo sidaas ma inshallah marka aad aad ugu mahadsantiin mar kale walaalka wariye Soomaali Maxamed Baruud Xuseen waan uga mahadcelinayaa qof kasta oo muuqaalkan daawada waxaan rajaynayaa in aan dhanka wanaagsan ka eegno in reerkan u duceeyno inaan gabadha lafteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida sheegto way bareed ducada Ilaahay ku aqbalay wadaadkeedana haduu soo caafimaadaya farxana aad buu runtii niyadiisu u wanaagsanayd anigana waxaan leeyahay mar kale mar saddexaad gaar ahaan dadkii channelkan Dada Media Channel ku xirna aad baan runtii uga mahadcelinayaa dadaalkiina iyo daawashadiina iyo ka warqabka aad iyo aad ugu mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.